السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada asxaabta mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkani maanta waxaan rabaa in aan kugu soo gudbiyo ama aan kugu baro sidaad u samaysan lahayd thumbnail qurux badan adigoo isticmaalayo mobilkaaga gacanta. Daawasho wanaagsan. magacaygu waa maxamed maxamuud, janaalkani waa caaqil taj. kanaalkani waxaan kusoo gudbinaa muuqaalo ku saabsan tiknoolajiyada sida isticmaalida apps-ka iyo sawir editing-ka. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janaalka subscribe saar, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. mahadsanid. ka hore intaan editing-ka aan u gudbin wax yar ayaan isfahansiinaynaa thumbnail-ka. thumbnail-ku waa sawirka kasoo muuqda videoga YouTube-ka aad soo dhigtay sida kuwaani oo kale. haddaba marka si aan u samaysano marka thumbnail-kaasi waxaad soo install garaystaa ama aad soo degsataa labadaani app oo shaashada idinkaaga muuqato. kan ugu horeeyo waxaa la yiraahdaa remove.png, kan kalena waxaa ku qoran pixel lab. labadoodaba waxaan kuu dhigayaa linkiyadooda description-ka ee kala soo deg marka ugu horeeyo waxaan rabnaa horta remove.png-ga inaan isticmaalno si aan sawirada aan isticmaali rabno aan background-ka aan ugu tirtirno. ugu horeyn waxaa furataa marka remove.png-ga. markaad soo furatid kadib waxaad taabanaysaa upload image, kadibna waxaad soo dooranaysaa sawirka aad u baahan tahay in aad background-ka aad ka bedeshid ama aad transparent ka dhigtid. markaad image-ka marka background-ka remove aad ka tiraadid ama background la-aan oo kusoo muuqdo, waxaad hoos ka aragtaa marka laba qaabood oo aad kusoo degsan kartid. labadoodaba waa soo degsi, laakiin waxay ku kala duwan yihiin resolution-ka ama quality-ga oo sawirka yeelan lahaa. qaybta hooseysoo kale download HD ah ku qoran, way ka quality badan tahay marka qaybta kore. marka waxay ku siinayaan marka hal jaanis oo free ah oo hal xaba oo HD aad ku degsan kartid, kadibna waxay kaaga dhigayaan paid version oo beesa ayaad dhiibaysaa. midka kalena waa everytime free waaye, laakiin sawirka waa ka dareemaysaa adiga quality-giisa waxyar inuu shucaaci waxaas soo galeen. marka aniga hadda waxaan taabanayaa qaybtaani oo caadiga ah oo halka xab freega waa iga dhamaaday, already waa isticmaalay. marka qaybta kore ayaan taabanaya hadda si aan u soo degsado. markaad soo degsatid kadib hadda kan abkani waan ka dhamaanay, wuxuu inoo qabanaya oo kaliya inuu background-ka aan ugu tirtirano sawirada aan u baahannahay inaan isticmaalno. kadib waxaad soo furtaa abkani loo yaqaano pixel lab. markaad soo furatid kadib wuxuu ku keenayaa marka shaashadani. ugu horeyn horta waxaan rabnaa inaan sameyno thumbnail-ku wuxuu leeyahay marka size oo loogu talagalay. ugu horeyn horta waxaan sameynaynaa sawirka background-ka shaashada kasoo muuqda ayaan iska bixinaynaa. waxaad taabanaysaa marka meeshani oo layeriska ay saaran yihiin, kadib waxaad taabanaysaa transparent. waad aragtaan hadda wuu tirtiray marka background-ka. kadib waxaan sameynaynaa marka size-ka oo thumbnail-ka in aan soo gelino ama size fit ku ah inaan sameyno. waxaad taabanaysaa marka saddexda dhibac ee kor ku taalo ama menu-ga, kadib waxaad kasii doorataa image size. kadib waxaad soo gelisaa size-ka thumbnail-ka. widthkiisu waxa waaye 1920, height-kiisana wuxuu gaarayaa 1080. si aad u xaqiijisid marka nambarada soo gelisay nambaro saxan inay yihiin, waxaad fiirisaa qaybta kore ee ku qoran tahay ratio. thumbnail-ka waxaa loogu talagalay mar walba inuu ratio-giisa ahaado 16:9 inuu ahaada la rabaa. markaad intaas xaqiiqsatid marka kadib okay ayaa taabanaysaa. waad aragtaan marka waxaa isbedelay background size-kii. haddana waxaan sameynaynaa inaan background-ka kusoo darno color. marka si aan background-ka color ugu soo darno, isla meesha adigoo jooga ama layerka adigoo joogo waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay color. markaad taabatid kadib waxaad dooranaysaa colorka aad isticmaali lahayd oo background aad ugu dhigi lahayd. anigoo kale hadda waxaan isticmaalay yellow ama jaala isticmaalay.
kadib waxaan kusoo dareynaa waxyaabihii aan ku qurxi lahayn. Hadda waxaan rabaa inaan hal sawir kusoo daro. waxaad taabanayaa calaamada balaaska, kadib waxaad sii dooranaysaa from gallery, kadib waxaad dooranaysaa marka intaasi kadib waxaad dooranaysaa sawirka aad ugu talagashay inaad soo gelisid. aniga waxaan ugu talagalay marka inaan soo geliyo sawirkaani waa sawir PNG ah. waxaan kasoo degsaday marka Google-ka, asagana waxaan idin soo dhigayaa linkigiisa description-ka si aad u isticmaashiin haddaad u baahatiin. Okay, sax ayaan taabanayaa. marka sawirkii aad soo gelisay positionkiisa saxo. aniga hadda sidaan ayaan ku dhaafayaa. waxaan rabaa marka inaan kusoo daro sawirka hadda aan transparentiga ama PNG-ga aan ka dhignay oo background la-aan ka ahay ayaan rabaa inaan kusoo daro. hadda mar kale ayaan waxaan taabanayaa plus, waxaan sii taabanayaa from gallery. sawirkii ayaan soo doortay, waad aragtaan sawirka aad soo gelisay positionkiisa. waad ogaan kartaa meesha ku qurxan ama sawirka uu kusoo bixi karo. markaad dhammaysid positioninka ama booska saxda ah ama ku qurux badan ee sawirka markaad dhigtid, kadib waxaad taabanaysaa layerskana ayaad taabanaysaa, kadibna looga ayaad gelinaysaa. hadhoodii looga haddaadan gelinin waxaa laga yaabaa inay gacantaada sawirka kaa taabato oo maanta o dhan ama booskiisa boos kale kaa tago. marka si uusan u dhaqaaqin waxaad samaysaa looga ayaad taabanaysaa. markaan looga taabto, hadda wuu ii xiran yahay, ma dhaqaaqayo xitaa haddaan taabto. markaan u baahda inaan dhaqaajiyno waxaan samaynayaa looga aan hadda saare ayaan ka bixinayaa. waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo, waad aragtaan haddii aad gacanta si fiican aad u fiirisid waxaa ka muuqdo inuu qofkani wax hayay. wuxuu hayay marka okyaalo ahay, okyaalka ayaa jab ka mid ah ka muuqda marka gacanta. waxaan rabaa inaan ka tirtiro. marka waxaad taabanaysaa calaamada eeda loogada ku dhagan. markaad taabatid kadib hoos ayaad u degaysaa. intaan eraser taabanin waxaad iska xaqiijisaa marka objectiga ama sawirka aad u baahan tahay inaad wax ka tirtirtid ma kuu dooran yahay. calaamadan ku wareegsan sawirka waxay caddaynaysaa inuu sawirkaani uu dooran yahay ama mid wax laga bedeli karo oo yahay. kadib eraser ayaa taabanaysaa. kadib wuxuu ku keenayaa marka halkaani ugu horeyn waxaad dheeraysataa ama aad weynaysataa usha wax lagu tirtiraaye. waxaad kaloo dhinaca kalena aad ka weynaysataa brushka afkiisa hore. cabir qiyaasa u sameey. kadib marka meesha aad rabtay inaad ka tirtirtid sawirka ka tirtir. markaad dhamaysid kadib calaamada saxda taabo. marka waad aragtaan marka sawirkii hadda kama muuqdo sheyga yaraa ee gacanta ka muuqday haddaay. waxaan kaloo rabnaa in aan kusoo darno marka thumbnailkaani takasti. waxaad taabanaysaa marka calaamada eeda. markaad taabatid marka eeda waxaad taabanaysaa calaamada balaaska, hoosteedana waxaa ku qoran takasti. kadib wuxuu kusoo gelinayaa marka geedkan yar ay ku qoran tahay new takasti. kadib waxaad sii taabanaysaa edit. markaad edit taabatid waxaad ku qoraysaa marka qoraalkaad u baahan tahay inaad ku qortid. waxaad taabanaysaa marka okay. waad aragtaan marka hadda takasti yar ayaan kusoo daray. takastiga marka waan qurqurxin doonaa. marka hadda waxaan soo dooranayaa fonti ayaan soo dooranaya. kadib hoos ayaad usoo degaysaa. waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay AB, hoosteedana waxaa ku taalo fonti. wuxuu kusoo bandhigaa marka noocyadaani fontiga aad rabtay ayaad ka dooranaysaa. marka aniga waxaan isticmaalayaa marka fonts aan soo degsaday oo Google-ka iyo meelahaas aan kasoo degsaday. haddii ay kuwaani meesha ku jira ku cajabi waayaan waa soo degsan kartaa marka fonti kale. markaad soo dooratid marka fontiga waxaan ka bedelaynaa marka qoraalka kalarkiisa. waxaad taabataa halkan ay ku qoran tahay color. kadib marka waxaad doorataa kalarkaad u baahan tahay. markaad dooratid marka kalarka waxaad taabataa calaamada saxda. mar walba xasuusnaa marka haddii aad rabtid inaad wax ka bedeshid calaamada saxda ah taabo. haddii aadan taaban waxay u dhigmataa inaadan weli wax ka bedelin. kadib waxaan rabnaa inaan size-ka farta aan weyneyno. waxaad taabataa halkan ay ku qoran tahay size. kadib waxaad ka dhigataa marka size-ka intaad rabtid. waxaan kaloo rabaa inaan waxyar takastiga aan qaloojiyo. hoos ayaad u degaysaa. kadib waxaad taabanaysaa rotate. inta aad rabtid ayaad angalka marka qaloocjin kartaa. aniga hadda waxaan rabaa -6 inaan ka dhigo.
haddana waxaan rabnaa inaan soo gashano text kale. intaasi ayaan ku ekeenaynaa marka muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka sii sheer gareey oo asxaabtaada kale la wadaag. mahadsanid.